ayaa guulaysatay runtiina yaa wadada guulaha ku soo laabatay bari ay dhoonsanaayeen oo labadii ciyaar la soo dhaafay meel ay ka baxeen cidii waa la waayay laakiin xalay mar kale ay yiraahdeen oo xoogaa yar neef soo gashay waxaanay xalay soo galeen booska shanaad ee ciyaaraha Premier League iyagoo min hal dhibcood ka dambeeya kooxaha afaraad iyo saddexaad ku jira ee Leicester iyo Man United ee Premier League runtii horyaalku ma la kala foga xalay Chelsea waxa goolkeeda hore ciyaarta u bilaabay ciyaartooyga qatarta badan ee David Silva waa Thiago Silva oo ah nin weyn ninka kan Silva ayaa xalay goolka hore ciyaarta bilaabay kadib goolka ka Chelsea waxay la yimaadeen gool kale oo ciyaaraha kan ay hogaanka ugu qabteenoo horyaalka Ingiriiska sanadkan aadka u xiisaha badan blue xalay waxay garaaceen West Ham waxaana la arkay toddobaadkan ciyaaraha Ingiriiska ee Premier League in kooxii waaweynaa oo dhan ay garaacayaan kuwii madaxa adkaa ee dhibta badnaa wad aragtay wixii ku dhacay Leeds oo madaxa adkayd wad aragtay wixii ku dhacay Crystal Palace oo aad iyana u madaxa adkayd West Ham oo madax adeegyaashu ka midna xalay waa la dabagediyay oo ilmuhu madaxa adag oo dhan isbuucan waa la wada garaacay xataa mar kale waxaa jirtay in Chelsea xalay inta ciyaar socotay uu ka dhaawacmay ninkii Chilwell ahaa oo ka mid ah ciyaartooyga Chelsea ugu muhiimsan taas oo taageerayaasha Chelsea maanta ay dhididayaan ay leeyihiin wallahi ninkii baa naga dhaawacmay Abraham ayaana daqiiqadii 78 Chelsea u xaqiijiyay guusha baas ka yimaaday caawineed ciyaartooyga Timo Werner oo isagu aan wali Chelsea wax gool u dhalnayn waxaanay xalay ahayd abaartiisa inay 9 kulan jirsatay oo aanu Chelsea wax gool u dhalnayn laakiin Abraham ayaa iminka ah ninka ugu goolasho badan kooxda Chelsea isla Abraham ayaana mid ka saddexaad ciyaartu dhaliyay daqiiqadii 80aad ee ciyaarta waxaanay Chelsea ku badisay xalay 3 gool oo ayaan marna jawaab ayaan bixin kooxda West Ham Chelsea kooxaha waxay sanadkan qayb ka tahay hunguriga uu hayo maxaa yeelay markaad aragto kooxaha ka horeeyo dhan wax badan kama sareeyaan xataa markaad aragto kooxda Leicester City oo ku jirta booska labaad ee ciyaaraha Premier League Chelsea waxay ka dambaysaa kaliya 3 dhibcood marka meel way 2 dhibcood bay ka dambeeyaan 2 dhibcood bis bay ka dambeeyaano oo wax badan kama dambeeyaan halka kuwa saddexaad iyo afraad ku jirna ay ka dambeeyaan min 1 dhibcood Liverpool oo hogaamiyaashana waxay leeyihiin 31 dhibcood halka Chelsea shanaad ku jirta ay leedahay 5 iyo 20 dhibcood oo mar kale bay xalay habeen weyn uu sameeyay Eduardo Mendy haddaba xalay Chelsea ayaa waxa sanadka kan ay ku tiirsan tahay dhanka difaaciyadeeda goolasha ay ka imaanaya iyadoo sanadka kan Silva, Chilwell iyo Zuma iyo James ay sanadkan Chelsea siinayaan goolal iyaga ayaa John Terry Ivanovic Carvalho hatta Chelsea waxay sanadkan lambad meel ugu soo baxeen kuwa kan dhalintooda sababtoo ah waxay goolal baa ka imaanaya dhanka difaacida ugu Silva sanadkan wuxuu dhaliyay 2 gool Chilwell wuxuu dhaliyay 2 gool Zuma wuxuu dhaliyay 4 gool James wuxuu dhaliyay 1 gool afarta difaac ee Chelsea sanadka kan runtii waa kuwa aad u khatar badan sidoo kale ogow Eduardo Mendy ayaa xalay ilaashtay shabaqiisa kulankii 10aad 16 ciyaar oo Chelsea u ciyaaray waxay taslami tahay ninkii mabaxay ahaa ee master kugama ahaa ee Keba 45 kulan bay ku qaadatay waatan xaqii la soo dhaafay inuu 10 kulan shabaqiisa ilaashto halka ninka kan durba uu 10 kulan shabaqiisa Chelsea ilaaliyay 16 ciyaar bis bayna ku qaadatay Mendy inuu 10 ciyaarood shabaqiisa ilaaliyo laakiin kanu Keba 45 kulan bay ku qaadatay inuu 10 kulan shabaqiisa ilaashto marka runtii gool hayaha kan Mendy waynan caadayn hatta Eduardo Mendy wuxuu ceebayay gool hayaasha isagu kaga soo horeeyay Premier League xil ciyaareedkana ciyaaray in ka hor isaga intaanu ciyaarin Premier League ayuu meel saaray xalay Eduardo Mendy kaliishidku ka sameeyay Premier League wuxuu kaga badan yahay xil ciyaareedkan sanadkan Premier League gool hayaasha Tottenham Loris kan Liverpool Alisson iyo kan United Digay xil ciyaareedkan isaga ayaa ka ilaasha badan shabaqa marka la fiiriyo ogowna xilli ninka kan uu seegay afartiis ciyaarood ugu horeeya xilli ciyaareedka isagoo seegay ayuu haddana afartii xilli ciyaareedka ugu horeeyay asagoo baan u ciyaarin isagoo gadaal ka yimaaday hadda wuxuu ka gool badan yahay goolahayaasha ugu muhiimsan Ingiriiska ayuu ka khatar badan yahay marka Eduardo Mendy waa libax leerta jiifa 10 kulan oo shabaqiisa ilaashtay Premier League-na waa kan ugu clean sheet ka badan marka la eego laba bardhigo kuwa kan ee waaweyn Digay Alisson iyo Loris isaga ayaa ka khatar badan waxaadna ogaataa in xalay
ciyaartii Chelsea tababar Frank aanu weli war ka soo saarin dhaawaca soo gaaray ciyaartoyga Chilwell balse Thiago Silva ayaa xal dhaliyay goolkiisii labaad ee Premier League xilli ciyaareedkan waxaana goolashu uu dhaliyay ay ka badan yihiin inta shoot target uu sameeyay William madaxdaash wax matare waxba aan qabanayn waa lagu soo lacag beelay runtii waxa leeyahay Arsenal Brazil khaldan bay la wareegeen Arsenal Brazil aan ahayn Brazilkii dhabta ah bay la wareegeen baa leeyahay waa Brazil khaldan iyo William khaldan bay Arsenal la soo wareegeen baa leeyahay oo fiirso Thiago Silva laba gool ayuu xilli ciyaareedkan Chelsea u dhaliyay halka ninka kan iska dhaaf inuu u dhaliyay Arsenal goole hal shoot target buu sameeyay xilli ciyaareedkan oo dhan madaxdaashka waxba ma hayaa lagu leeyahay ya wax uu hayo ma jirto ninka ka bilowgii xilli ciyaareed kulankii ugu horeeyay iswaalwaalayo wax kale wayaan oo waawi la yiri wixii ka dambeeyay William meel uu ka baxay ma laha wala la yahay marka waxa lagu leeyahay hal shoot target bis baa laga hayaa William xilli ciyaareedkan halka Silva laba gool uu sii marayo marka Arsenal waxa la leeyahay nasiib dara hayso Brazil khaldan iyo William khaldan bay la soo wareegeen anta bal markan haddaan waadno caawo waxaa la filayaa in la ciyaaro ciyaaraha koobka Liga Cup-ka Ingiriiska waxaana caawo ku balansan inay ciyaaraan Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyadoo Arsenal ciyaartu ka maqnaanayo kabtankooda weyn Aubameyang caawo marka Arsenal waxa ay meesha la imaan doontaa ilmaheedii yaryaraa ay caawo meesha la imaan doonaan waa laga yaabaa Arsenal FA Cup-ka iyo Liga Cup-ka markay la ciyaarayso kooxaha waaweyn way ka hoos bixiyaano marka runtii caawo kabtankooda ma joogo ciyaartan waxay caawo soo gali doontaa 11 habeenimo waxaana lagu ciyaarayaa Emirates runtii Arsenal waxay caawo u baahan tahay ugu yaraan inay madax degsato bay u baahan tahay Aubameyang oo 5 gool xilli ciyaareedkan Arsenal u dhalay tartamadoo dhan caawo gabi ahaan ba ciyaartan ma ciyaarayo haddaba Arsenal oo kabtankoodu ka maqan yahay caawo dhaawac dartii ayaa ninka Aubameyang xataa wuxuu segay ciyaartii Everton todobaadkan guuldarada ka soo gaaraysay Arsenal ka soo gaaraysay Aubameyang Everton badinaysa Arsenal laga badinay Gabonku waa segay oo waa maqnaa midda kale ogow Arsenal waxa hadda Arsenal ay ku jirtaa meeshii ugu xumeed kubadda cagta Ingiriiska taariikhda tan iyo 1974 iyo 75 maxay la Arsenal todobadii ciyaar la soo dhaafay 5 jeer ayaa laga badiyay xilli ciyaareedku 8 jeer ayaa la garaacay waxay ku jiraan booska 15aad waxay haystaan 14 dhibcood waa aad dad u liita sanadka kan waxa la isweydiinayaa inay sanadkan ka ciyaari karaan qaybaha hoose ama heerka hoose inay ka ciyaari karaan ayaa aad la isweydiinaya runtii Pep Guardiola qudhiisa isaguna kooxdiisu waxay sanadka ku dhiban tahay dhanka dhalinta goolasha saas oo tahay Guardiola wuxuu leeyahay wax weeryahan oo aan soo iibsanay ma jirto leeyahay xilli la ogyahay City inay sanadkan dhalinta ku wanaagsanayn Arsenal iyo Man City markii ugu dambeeyay ku kulmayeen League Cup ku xayeed 2018 finalkiisa City baana ku adkaatay 3 gool iyo ever the Gunners ayaana laga badiyay 3 kamid ah waxaas Arsenal laga badiyay oo ay guuldaro soo gaartay saddexdii ciyaarood la soo dhaafay League Cup-ka oo ay Manchester City la ciyaaraysay hataa ay ku jirtay quarter finalkii 2009 iyo 11 marka waxa uu leeyahay labadan markii ugu dambeysay Arsenal baa semifinalka ayaa League Cup-ka finalkiisii lagu garaacay marka caawana marka labay kuwa kan u kulmi doonaan runtii Man City baana badisay saddexdii ciyaar la soo dhaafay Arsenal ay gurigooda kula soo ciyaareen ugu dambeeyay dhammaantoodna waxay ahaayeen Premier League runtii Arsenal baryahan kooxii weynaa xataa aad iskaga celiso marbar bay weeroonayeen ay qabanayeen laakiin inta badan Arsenal waa lagu tashtaa dhibciidu markay la ciyaarayaan kooxaha waaweyn ee kale iyadoo waana loo baqaa Arsenal caawa waxay doonaysaa inay soo gudubto haddaba Man City ayaa soo gudbaysay oo gaaraysay finalka mid kastoo ka mid ah ciyaaraha Liga Cup-ka waxaana caawa ciyaarta tan ay ka mid tahay ciyaaraha ugu adag ee aanu isha ku hayno surub haddaba ogow Man City ciyaartooyda Raheem Sterling ayaa 17 gool siiyay kooxdan 25 ciyaarood oo Liga Cup ku ciyaaray 10 gool ayuu City siiyay 7 goolna uu caawiyay runtii waliba waxa ku jira isagoo shabaq soo taabanay mid kastoo kamid ah labadii ciyaarood la soo dhaafay Arsenal uu kula ciyaaray gurigooda Emirates Stadium labadaas ciyaaroodna waxay ahaayeen Premier League وكاي عاوي عيارها جرا بل